madaxweynaha deegaanka Oromiya Shamalis Abdisa ayaa shaaciyay qaabka deegaanada dalka loogu qaybiyo miisaaniyadda iyo kheyraadka kale waxaana ay dad badan ku tilmaameen qaacido lagu saleeyay in Sadbursimo ama Sadeeri ay ku helaan deegaanada Oromada iyo Axmarada. madaxweynaha deegaanka Oromiya Shamalis Abdisa oo ka hadlayay kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka Itoobiya oo sidoo kale ka yahay gudoomiyaha guddiga joogtada ah ayaa ka jawaabayay su'aalaha ay xildhibaanadu weydiiyeen waxaana uu sheegay in miisaaniyadda iyo kheyraadka kale ee dalka lagu qaybsado tirada dadka iyo baaxadda dhuleed ee deegaanada dalka iyadoo la og yahay in deegaanka Soomaalidu uusan helin xuquuqda ama xuquuq u dhiganta tirada dadka ku nool iyo baaxadda dhuleed midna. golaha ayaa ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2015 ee Itoobiya. golaha ayaana ansixiyay hindisa miisaaniyadeedka sanadkan ama sanadka tirsi taariikheedka Itoobiya ee 2015. golaha ayaa kala fadhigan caadiga ah waxa ay kaga doodeen hindisa sharciyeedka ay u soo gudbiyeen guddiga joogtada ah ee kaalmada iyo miisaaniyadda wadajirka ah waxaana ay ku ansixiyeen kala fadhiga. gudoomiyaha guddiga joogtada ah Shamalis Abdisa ayaa ka jawaabay su'aalaha ay xubnuhu soo jeediyeen oo ku saabsanaa habraaca qoondada miisaaniyadda. soo jeedinta tirakoobka dadweynaha iyo guryaha ayaa lagu tilmaamay habka la doorbidayo ee lagu hagaajinayo arrimaha qoondaynta miisaaniyadda iyadoo lagu saleynayo talooyinka ay soo gudbiyaan xubnuhu.